balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo aqliyaadka muslimka ay goormay galbeedka degeen. waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay Yurub dagaalada gashay kadib. inta badan hijrada ugu badan waqtigaasay tagtay. dagaalkii koowaad dadka badh baa tegay se afwaajta ugu tirada badan leh, kooxa ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay. dagaalkii labaad Yurub way duumtay oo iyada isdumisay, wadanadii way baaba'een. kadib markay nabadoodu dhacday waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan. dabeetana waxaa loo baahday aliyadi alcaamila, dadkii shaqaalaha ahaa ee wadanada wax ka dhisi lahaa. markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh. dadkaa hore waxay u badnaayeen North Africa, muslimiinta degta waqooyiga Afrika, Morocco iyo Algeria iyo Tunisia iyo bacd masaarik kamid ah waqooyiga Afrika muslimka dega. iyabay u badnaayeen Turki. dawla al-Uthmaniya markii ay shabtay wixii ka dambeeyay Turki. dadka hore ee tegay meesha waxay u badnaayeen dad aan aqoon badan lahayn, mid diineed iyo mid maadiyatoona, murqmaal, dad shaqaale ah oo guryaha iyo daaraha iyo tareenada iyo gawaadhida iyo waxa la dhisayo ka shaqeeya bay u badnaayeen. hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadanadii muslimiintana qalanqalka badani ka dhacay. mar labaad baa Yurub waxa ku dhacday inay yaraato aliyadi alcaamila, gacanta shaqaynaysay. markan dagaalmo laynin oo sidii dagaaladii 50 milyan baa ka hore ku madhaye dagaalamay laynin ee iyaga go'aansaday inay isdilaan. iyaga go'aansaday inaanay dhalin. Yurub tiradeedu wax laga yaabaa inay ka hooseyso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday. Yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa, ma sii badato. halka dunida kale ay bataan, iyagu ninka cadi wuu yaraadaa. waayo labada qof isqabaa laba ma dhalaan. marka general average la eego wadanka wadan walo Yurubaba, Albania muslima marka laga reebo wadanada Yurub oo dhan isku dar, meel labada qof isqaba marka wadanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto. sadaraadeed tiradu way sii yaraanaysaa. kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan, ama kuwa bensha ka gelaya. idan xoogii manpowerkii shaqaynaya wuu soo yaraanaya. taasi waxay sababtay iyana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya. mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan. labadaa waqti aynu odhan karno hijrada ugu badani waxay gashay qarnigii 20aad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii. waana waqtiga ay dumeen caalamul islaami dawlado iyo dad badan oo ka tirsan.